labada mas-uul ninna qarannimo qiimaha ay leedahay, sharafta ay leedahay, qadarinta ay leedahay, xisaabtanka ay leedahay ma fahamsana. nasiib xumay noqotay. ninka soo saaray buu ahaa, asagana dembigaasuu leeyahay. farmaajona markii uu Roble uu hawshaa u dhiibahay inuu ka fiirsaday ahayd oo qof fahmayo dignitiga statehoodka iyada ay leedahay iyo state craft sida loo maamulo inuu raadsaday ahayd. nin aad iyo aad u hooseeyo aqoon ahaan, maskax ahaan, xisaabtan ahaan, damiir ahaan ayuu soo waday. dembigaasaytuu ummadda Soomaaliya ku haysataa. maxaad ku soobeynaysaa arrintaas? dee waxyaabaha uu samaynayo dhan baa iska caday. nin madaxweyne ahoo prime minister ahoo waddan idil madaxweyne ka yani executive powers haysto oo weliba doorasho ku jirto madaxweyneha hate uu yahay nin asaga ka warsugayo oo waddankan intuu taga macawiis iyo shaar iyo koofiyad u xirahayo nin asaga lamid la daraje. nin maxay ahayd madaxweynihiisii asaga caanka shalay soo saaray oo isku xilfiga ahaayeen dowladdii islahayd banaanka haysto gabar baa caanka war 2 milyan oo Soomaali baa dhimatay 30 sano soo dhaafnay hadda. ayar tartiib in loo fiiriyo la baaro oo la ogaado caanka qarankina at any cost you cannot destroy a whole nation. war madaxweynaha la dilaa hoos intii loo dilo yaa lagu tuuraa god oo la yiraahdaa waxa uu soo galay niman caanka kuwii dilay baa ku korooyaa meydkiisa, laakiin qaranka waa la badbaadiyaa. shakhsiga uu imaan wada tegi hal shakhsi oo dawlad laan kamida u shaqeyso laantaana laan riskiga iska farbadan yahay inaad tiraahdo wad qaranka ilaaban u duminaya. laakiin qof Soomaaliyeed oo la dilay oo lagu saxbaalay kiikaadi ma sooyay war 100 ha la dilo 500 ha lagu dilo meel. laakiin qof la dilay mudane oo sargaal in cadaalad loo raadiyo miyaa qaran dumis? cadaaladda waxaa nidaam lagu raadiyay leedahay. nidaam lagu raadiyay leedahay. prime minister baa tahay, deputy prime ministers baa qabtaa, wasiir baa jira oo maxay ahayd amniga, permanent secretary baa jira. intaasoo dhan baa leenka ku jiraan. nidaam lagu raadiyay oo lagu daba kacay jirtaa midda dawlad baa isla tiir idinkii oo yaa isku mid ah. jaraa'idkii inaad ka maamusho dawlad war kun haday dhimatana maqaranka la dumin. qaranka la dumin faado xilka laga qaadaba ma maxay tahay qaranka la dumin ii sheeg. qaranka waxaa lagu duminayaa markii meeshii ugu sarreysay isqa qabsadaan. markii khaladka soo lama oran karo madaxweynaha iskale. ninkan har cad baa lagu wareejiyay awoodda baarlamaanka hortiisii uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku wareejiyay awoodda doorashada iyo awoodda dalka. miyaysan ahayn Farmaajo markii uu yiri ra'iisul wasaaruhu xilkii waxaan ka joojiyay ama ka hakiyay Fahad Yaasiin oo tuhunkaasi uu soo galay in Farmaajo uu warqad u iftaa soo saaray waxbana kama jiray. markii aad transition period lagu jiro dawladnimada macnaheeda ay sheegayso transition period markii lagu jiro executive authority dadka haystaan cid cusubna ma magacaabi karto, cidna xilka kama joojin karto, xil cusubna ma beeri karto. nidaamkii jirin baa lagu shaqeeyaa transition markii lagu jiro. ninka waxaa loo dhiibay meesha bilooyin inuu doorashada u wado. taliya ciidanna kama saari kara bahalka shaqada, mid cusubna oo magacaabi karo. dhegeysanaa ku sheegay nidaam cusub oo wareegto cusub oo ka baxsan sharciga jiray markaana ma soo saari karo. waa system adduunka dhan buu ku shaqeeyaa. adduunka dhan uu ku shaqeeyaa. hadda annaga markaan doorashada gelino wasaa doorashada loo geli waxyaabo waxaa jirtaa waqtiga doorashada marka la gaaro 60 bari u dambaysa aan waxba laga sameyn karin. laakiin waa inuu shakhsiga laazim uu fahmaa qiimaha iyo state craft waxa la dhahay state dawladnimo macnaheeda. xamis yaad bar jaamacad ma gelin, jaamacada ma soo marin, laakiin macnaheedu dawladnimo ku jiray askarinimadiisa ilaa ay meesha ugu dambayso. dawladnimada waxa weeyaan inta badan khibrad weeyaan. ma waxa academic oo professor man jaamacada ka hay waan ku qaatay meesha lagu dhigi kara maaha. annaga hadda wax markii wadanka isbedel u dhacayo oo hadda Uhuru ma tagi doono wax yar bisha lixaad markaan gaarno 6 months to elections waxa la hagaajinayaa transitional authority teamkii isbedelka keeri lahaa ya oo civil servants ay u badan yihiin
head of civil service director of intelligence director of military director of KRA nimankaasito ayaa isku imaanay iyaga wadanka wadaan deep state ka lagu sheegay wataa laakiin gabar baa la dilay way maqantay xanka karaan shaqada ka joojiyay madaxweynaha baa caankan ugu yiri ma suuqi yaanyada lagu gadaya dawladnimada oo kana uu soo tuuray hadalkan waa hadal soo tuuray awa wixii lagu aaminay hay awoodda markii lagu dhiibo waana laga qaadi karaa awoodda mid kasta oo lagu dhiibo laga qaadi karaa midda ugu culus in laga qaado midda shacabka ku dhiibtaan shacabkana doorasho ka qaaday laakiin appointing authority ninkii madaxweynaha oo yiraahdo xilkaasan ku wareeji haddii aad wadi weyso waa laga wareejin mana samayn karo ninkii farmaajo ah cala adeeg bay u baahan tahay raganimay u baahan tahay inuu sameeyo markii uu ka qaado xilal muhiim ah farmaajo laftiisu mandate ma haysto isagana ku sheegay mandate waa haystaa maya kanna waa appointed authority kanna waa elected authority February mandate daqiiqa aniga qabso dawladnimada macnaheeda aan ku sheegay taanada badaris intaan la joogto aniga madaxweyne markuu la dhaariyo madaxweyne cusub uu xilka ka wareegaa maqlalkii prime minister markii prime minister cusub la dhaariyo xilka ka wareegi ma way dawladda dhan baa dhici laakiin tusaale ay soo qaadan mudane Kenya aan joogno adigu siyaasi Kenyaan tahay Kenya xilliga doorashada ku dhacday iyo Soomaaliya xilliga doorashada ku dhacay ismid miya musamar taariikhda Kenya in sanad doorasho ayna dhicin oo mandate-kii cidla la iskaga sii fadhiyo waxay dhacday mid la rabay inay dhacdo oo constitution-ka ku qorneed